عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. صحابي قال جليل البراء الله كرم له وليه نبي قال حريصي أنه الجليل كركيس الله يليه وحوها مدك هو نكسر وجهان يو سفوين كيسهان مدك هو نكسر dabeecadiisan dabeecada ugu wanaagsan ayay ahayd dabeecad la dhigma ma jirin nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka sida uu la macaamilo jireen waa si wanaagsan bay ahayd nabiga qof la mid ah oo maanta jooga ama markaa joogay waagii joogay ma aysan jirin qof isaga la mid ah muusan jirin.